السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وضع خيرت دمانتي ودو سلامي بالكور واحد سميي فيديو كساب سنة كريبتو كارنسيغا إقابك وقف هذا سنكرو إن شاء الله تعالى سنة كان بس صعدة فيديو كان واحد إن لشير جريي داتوين كسب حي ودك مريكنك داتوين كلا inflation rate كا unemployment كا CPI دا ولقى قياسه مارتي inflation كا أبا سعر بركة ودك مريكنك مدام وها فيديو قاس فيديو بوزيتيفة oo fikrado wanaagsan iyo daatooyin wanaagsan isla eegnay oo taanaynu ku salaynay mustaqbalka dhow ee cryptocurrency-ga iyo stock market-ka iyo iqtisaadka caalamka inuu wanaagsanaanayo maantana insha Allah taala waxaanu isla eegi doonaa waxa xumayn kara iqtisaadka caalamka taasoo isla eegayno daatooyin cusub iyo taxliisha bitcoin-ka iyo stock market-ka soo dhawaada waxyaabaha ugu horeeya ee negative-ka ah amba negative suuqa ku noqon kara haddaynu ku bilowno waxaa ka mid ah US default on debt taana macnaheedu waxa weeye Mareykanka imaka lacag aad iyo aad u far badan ayaa lagu leeyahay lacagta amba deenka lagu leeyahay wadanka Mareykanka waxay gaaraysaa 31 trilyan iyo 576 bilyan oo dollar taana waxa weeye lacagtii ugu badnayd ee abad lagu lahaado wadanka Mareykanka laga soo bilaabo 1776kii markii wadanka Mareykanka la aasaasay ilaa 2000kii waxa lagu lahaa wadanka Mareykanka lacag gaaraysa 10 trilyan oo dollar 20 sanadood ama 23 sanadood imika soo dhaafay lacagtaasi laba jibaar ayay noqotay oo imika sidoo aragno halkan 31 trilyan oo dollar ayaa lagu leeyahay Congress-kana waxay shir leeyihiin June 2023ga inay soo yimaadaan oo halka mas'alada ay ka wada hadlaan taasoo doonayo imika madaxweynaha haya wadanka Mareykanka Joe Biden lacagta soo amaanayeen in loo kordhiyo si ay mashaakilka far badan ee wadanka ka jira haday tahay inflation-ka iyo waxyaabaha kale ee saameeyay iqtisaadka Mareykanka inay ku kabaan ku hagaajiyaan marka arintaasi aad iyo aad bay xasaas u tahay inkastoo imika laga baqayo wadanka Mareykanka inuu gaaro heer aanu lacagta ku bixin karin laakiin arintan waxay dhacday wax ka badan 22 jeer oo ka horeysay oo siilinka amba saqafka lacagta la soo amaanay oo kulba ay kor u qaadayeen taasoo saamaxaysay wadanka Mareykanka in lacago dawladaha kale ay ka soo amaahdaan oo halka waxyaabahooda ay ku qabsadaan taana waxay la tahay ilaa samarka la gaarayo Congress-ka waa ka shiri doonaa laanu labada xisbi imika ayaguna waa kuwan kursiga isku dilaya amba madaxtooyada marka imika waxa la joogaa marxalad in la badbaadiyo wadanka Mareykanka marxalad siyaasadeed maaha marka waxay la tahay default-ka iyo inay wadanka Mareykanka ay ka soo kaban waayaan waxan inay tahay maartay mas'alad iska hadala oo insha Allah taala ay tahay mid ay ka soo laabtaan si xitaa dawladda kale iyo iqtisaadka caalamka aanay u saameyn dan isla eegno CME-ga Fed Watch Tool-ka waxaan ku aragnaa inay ka hadhay 25 cisho haddii isla eegno muxalliliinta iyo meesha loo badinayo iyo percentage-ka loo badinayo inuu maartay sarkaca dulsaarka faa'iidada intuu noqon karo halkan ku aragno boqolkiiba 73% waxay u badinayaan inuu u dhaxeeyo percentage kaasi 0.25% ina 0.25% lagu daro oo halka totalka uu gaaro interest rate-ka boqolkiiba 5% laakiin imika waxaanu aragnaa inay soo badanayso nisbada u dhaxaysa 0.50 ilaa 0.75 oo halka totalka guud ee interest rate-ka uu gaari karo 5% ilaa 5.25% marka halkan xaqiiqatan dhowrkii bilood u dambeeyay waxa loo badinayay 0.25% laakiin imika bayaanaadkeed labada week u dambeeyay soo baxay ilaa shalay waxaanu aragnaa ina percentage-ka interest rate-ka in lagu dara karo amba inuu dhaafi karo 0.25%kii ee banka dhexe Mareykanku ay ku socdeen taasoo ay doonayeen kolba talaabo yar inay qaadaan si aanay khalkhal aanay u gelin iqtisaadka iyo stock market-ka maadaama ay yihiin labada shay ee u muhiimsan ee iyagu mar walba ay focus ka saaraan laakiin dhinaca kale haddaynu eegno waxaanu aragnaa sida banka Goldman Sachs sheegaya in lagu dari karo 0.75% waa suurtagal maadaama ilaa imaka sicir bararkii aan la xakameyn oo weli waxa isbedel weyn aan laga arag banka dhexe Yurub waxay u badanayaan in lagu dari karo sicir faa'iidadooda 0.5% taas oo aad moodid caalamka iyo banka dhexe maartay adduunka in isku fikir yihiin oo isku talaabo ay wada qaadayaan gabigood taasina waxayna siinaysaa indicator oo waxaanan ku ogaan karnaa ina dulsaarka March uu noqon karo 0.5% marka taa xaqiiqatan waxay noqonaysaa wax aanu marketku aanu diyaar u ahayn oo soo daadin karta stock market-ka iyo cryptocurrency-ga qodobkan kale oo muhiimka ah asna wuxuu ku saabsan yahay bonds-ka waxa la yiraahdo amba shahaadadaha ee dawladda Mareykanka ay bixiso oo halka dadka ay eegu lacagahooda ay amaahiyaan dalka wadanka Mareykanka kadibna halka faa'iidooyin fara badan uu wadanka Mareykanka uu siiyo bonds-kana haddaynu eegno lacagta amaahda ee 10 sanadood ay wadanka Mareykanka ay siiyaan iyo labada sanadood
ta ah haddaynu eegno farqiga u dhexeeya labada hadi jeerna waxay tahay calaaqada kaga dhexaysa mid negative ah oo mar walba oo 10 sanadooda ay sarkacay samayso oo 2 yearskuna ay daadato taa waxay u wanaagsan tahay hada jeer economiga iyo stock marketka marka imika sidaynu aragno labada sanadooda ayaa ka badan 10 sanadooda aba amaahda dadku ay bixinayaan ee ay siinayaan wadanka Mareykanka ee muddada labada sanadooda ayaa ka badan ta muddada 10 sanadooda marka imika sidaynu ku aragno halkan chartka ta labada sanadood faa'iidada ay helayaan dadka amaahinaya wadanka Mareykanka waxay gaaraysaa 4.8% kale 10 sanadood gaaraysana waxay ku wajahan tahay imika almost 4% marka imika sidaynu aragno dadka xukuumadda Mareykanka lacagta amaahinaya faa'iidada ay helayaan waxay ka badan tahay dadka amaahinaya wadanka Mareykanka 10 sanadood marka mar walba oo labada sanadood ay ka badan tahay 10 sanadood amaahda iyo profitka iyo percentage-ka halka ay ka faa'iidayaan marwalba suuqa waa u xun tahay markaynu aragno insha Allah tacaala labada sanadood oo percentage-keedu ay soo daadatay oo 10 sanadood ay badatayna markaas aynu oran karnaa suuqa iyo iqtisaadka meel wanaagsan ayuu maraya amba waxay tahay fatarada ugu wanaagsan ee inaan la maalgashto marka imika sidaynu aragno dadku waxay doonayaan muddada dhow inay lacag fara badan ay ka sameeyaan lacagta ay amaahinayaan wadanka Mareykanka qodobada kale ee muhiimka ah ee sii daadin kara suuqyada iyo wadciga caalamka iqtisaadka si xumeyn kara waxaa ka mid ah dagaalkii Ruushka iyo Ukraine oo wali socda taasoo imika wadanka Mareykanka iyo wadamada Yurub ay doonayaan dagaalka inay galaan taas oo xitaa dhowr cisho ka hor wadanka Mareykanka iyo wadamada reer Yurub ay u soo direen maartay gantaalo iyo hub taana iyada waa laga baqayaa in maartay asmada ay sii kordhiso oo dagaalkaasi aanu dhamaanba qodob kale ee muhiimka asna waxa weeye Ruushka oo asna doonaya in dawladaha kale ee u dhow inuu dagaal ay ku qaado qodobka kale ee ra'iisiga wuxuu yahay shirkadaha tech ah amba waaweyn ee wadanka Mareykanka eego lay off sameynaya oo halka shaqaale far badan eriyaya taasna reportka unemployment-ka waa u xun yahay tan imka nimaadno chartka bitcoin-ka aynu eegno meesha ku wajahan yahay ee qaabku u socdo weekly-ga inagu ka soo eegina maalintii hore waxaanu sheegnay ahmiyadda ay leedahay $25,000 taasoo aragno imaka inay noqonayso resistant ama meel laga soo celin karo taana waxa ku beegmay imaka waxa loo yaqaano dead cross oo halka ay ka dhacayso waxa loo yaqaano isgoyskii dhimashada oo 50 moving average iyo 200 moving average aniga EMA baa ii saaran laakiin any moving average oo isticmaali kartaa farqiga u dhaxeeya waxa weeye surcadda iyo qaabka ay u analyze garayaan price actionka marka imaka weegan insha Allah tacaala update waa ka soo samayn doonaa si gaarana waxaan doonayaa insha Allah dhowr shay oo muhiim ah oo ku saabsan cryptocurrency-ga maadaama aan doonayno halkan inta badan aynu ka hadalno iyo stock market-ka kaliya imaka insha Allah tacaala si aanu waqtigu aad ugu dheeraan waxaan doonayaa focus-ka inaan saaro dead cross-ka dhacaya maalin hore waxaan ka hadlay daily-ga oo asagu inoo sameeyay waxa loo yaqaano asna golden cross oo halka labada 50 moving average iyo 200 moving average isgoyska oo ka dhacay oo halka suuqu bullish ku noqday imakana daily-ga hadaynu eegno bitcoin-ka waxaanu arkaynaa ilaa levelada hore in lagu soo celin karo higher low-ga weekly-ga markaynu eegnana wali range wanaagsan amba meel wanaagsan ayaa laga yaabaa in la keeno kadibna sarkaca inuu sii wato waa macquul laakiin maadaama isgoyskaasi uu dhacayo oo week horena week laga soo celiyo weekana aad moodid ina lagu soo qabanayo qaab rejection oo halka uu ka dhici karo candle confirmation oo la yiraahdo xaraami kana insha Allah tacaala sida sheegay waxaan isla eegi doonaa weegan oo halka markuu candle-ku inoo xidhmo maadaama imka ay ka harsan tahay laba cisho insha Allah tacaala marka aynu si wanaagsan wada falanqayn qodobada ugu muhiimsan saameynta uu ku yeelan karo cryptocurrency-ga halkaas aynu si wanaagsan ugu falanqayn doonaa insha Allah tacaala marka maanta intaasan kusoo gabagabeynayaa aad mahadsantihiin